Waxaa la sheegaa in gorgorku ka mid yahay noolayaasha duula kuwa ugu cimriga dheer, wuxuu cimrigiisu gaadhaa 70 sano, laakiin si uu da'da u gaadho waa inuu maraa marxalado kala duwan. Marxaladahaasoo midba ta kale ay ka adag tahay. Maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan isbeddelka nolosha. Ku soo dhawaada mowduuca maanta. Sidoo kale waxaa la sheegaa in gorgorku marka uu 40 sano jir gaadho inay daciifaan ciddiyihii dhaadheeraa ee ugaadha ku dafi jiray, taas oo sabab u noqotay in uu gaajo iyo macaluul waqtiga intiisa badan uu ku qaato. Sidoo kalena waxaa soo qalloocsamay afkiisii dheeraa, sidoo kalena baalashiisii oo gabow dartii cuslaaday waxa ay ku dhegaan laabtiisa, taasoo sababtay inay duulistiisii ku adkaato. Sidoo kale halkaa marka uu xaalkiisu marayo waxa u bannaanaata 2 wado: inuu isdhiibo oo uu gaajo iyo macaluul dhinto, ama inuu u diyaar garoobo waajahada isbeddel iyo nolol kale, iyo marxalado dhib badan si uu noloshiisa u sii wato. Haddiiba Ilaahay waafajiyo inuu sii noolaado waanu isdhiibin, waxa uu maraa 150 casho oo aad u dhib badan si uu 30 sano oo dambe u sii noolaado. Wuxuu u duulaa buurta xaggeeda ugu sarreysa, halkaasoo uu hoogiisa ka samaysto. Wuxuu bilaabaa inuu afkiisa dheer ula dhaco dhagaxyada buurta si uu u afdhacsado. Waxa aanu muddo sugaa inuu afkii dheeraa dib ugu soo baxo. Marka uu afkii dheeraa dib ugu soo baxo, waxa uu bilaabaa inuu iska siibo ciddiyaha. Waxa uuna sugaa inta ay ciddiyuhu soo baxayaan. Kadib waxa uu bilaabaa inuu iska rifo baalashiisii gaboobay si ay baalal cusub igu soo baxaan. Maalinta ay 150 cisho u dhammaato ayuu dib u bilaabaa ugaadhsigiisii iyo weliba duulimaadkiisii, isagoo sii noolaada 30 sano iyo weliba wax ka badan. Haddaba waxaa xaqiiqo ah in qof kastaba maankiisa ay ka guuxayso sida uu la imaan lahaa isbeddel midho dhal ah oo uu ku liibaano adduun iyo aakhiraba. Sidoo kale waxaa qof kasta laga rabaa inuu isqiimeeyo kadibna isbeddelka uu u baahan yahay dib isugu sameeyo. Sidoo kale noloshiisa inuu waxyaabo badan ka beddelo. Isbeddel kastana waxaa loo maraa dhib iyo xanuun badan. Ma jiro wax si fudud ku yimaada adduunka. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala quraankiisa waxa uu inoogu sheegay: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. haddii qofka bani'aadamka ahi la yimaado isbeddel oo uu xumihii iyo waqti lumiskii ku beddelo daacadnimo iyo wanaag, Ilaahayna ma dayaco. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyaa deganaansho, farxad iyo reynreyn. sidoo kalena waxa laga qaadaa warwarkii, cadhadii iyo weliba noloshii kadeednayd. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.